Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan qaadanaynaa video la xiriira sida loo qaado waxa loo yaqaano blood collection ama cilmiga loo yaqaano phlebotomy. Waxaad u baahan tahay waxa loo yaqaano tube-ka dhiigga aad ku shuba lahayd iyo silingadii aad dhiigga ku qaadi lahayd iyo waxa loo yaqaano vacuum tube ama waxa loo yaqaano vacuumka ama transferka bahalka loo yaqaano. waxaad kaloo u baahan tahay suuf alcohol wata ayaad u baahan tahay and also waxaad u baahan tahay waxa loo yaqaano turniigii ama bahalkii lagu xiri lahaa qofka. waxaad kaloo u baahan tahay sharoota ayaad u baahan tahay. qofka waa inaad gacantiisa dhigtaa meel siman, meesha dhiig ku qaadaysidna waa inay ahaataa meel nadiif ah. waana inaad u sheegtaa qofka inaad ka qaadaysid dhiig wax dhibana uusan lahayn. sidoo kale waa inaad qofka weydiidaa ma markii kuugu horreyso dhiiga laga qaadaa iyo waxyaabahaas oo lamid ah, iyo inuu dhiig qaadis dhibaato lahayn oo qofka waa inaad ka dhigtaa mid degan. xididka aad dhiig ka qaadaysid waa inuu ku ahaadaa mid kuu tilmaaman adigoo gacanta ku raadinayo, maxaa yeelay dadka qaar lama arki karo xididkooda. xididka ugu wanaagsan ee dhiigga laga qaado waa meesha gacanta ay ka laabanto wax loo yaqaano suxulka. then xididka ugu fiican ee laga qaadana waxaa loo yaqaana median cubital vein ayaa loo yaqaanaa. waa xididka soo muuqanayo markii qofka la xiro. then waxaad soo diyaarsanaysaa siringadii ayaad soo diyaarsanaysaa. siringada hadda aan dhiig ku qaadayno waa number 5 ama siringa number 5. siringada si fiican u dhuuji markaad fiiqdid si gently waxa loo yaqaano isku rakib. waxa loo yaqaano kadib waxaad gashataa sterile gloves nadiif ah oo aan hore loo soo isticmaalin. qaabkaas ayaa gloveska loo gashtaa. then waxaan sameynaynaa suufka alcoholka lahay ayaan soo qaadaynaa oo one time use ah oo aan hore loo soo isticmaalin. meesha dhiig ka qaadaysid ayaad saaraysaa suufka qaab circle-ka ah oo wareeg ah ayaad u marinaysaa. inaad ku rugtid ama meesha aad ku celcelisid lama ogola. then waxaad samaynaysaa turniiga ayaad soo qaadanaysaa waad xiraysaa qofkii meel ka yara sareyda meesha aad dhiig ka qaadaysid ayaad xiraysaa. turniig wuxuu kaa caawinayaa in uu xididka pressure fuulo oo uu kuu soo baxo. hadda waad u sheegaysaa qofka inaad dhiig aad ka qaadaysid. waxaad soo qaadanaysaa silingada afkeeda ayaad dabool qaadaysaa. hadda waa diyaar. silingada inay wax cilada leedahay ama ay qalloocanta iska fiiri. sidoo kaleeto inay si fiican u shaqaynayso waa aad baraaweynaysaa adoo gadaal usoo jiidayo inuu afkeedu furan yahay. silingooyin qaar ayagoo cusub ayaa afkooda waxa loo yaqaano oo xaniban yahay oo wax ku go-an yihiin. markii aad hubisid inay kuu shaqaynayso xididka dul saar xagal 45 ah adoo silingada waxa loo yaqaano iyo jirka isku jirsiinayo dhiigga ka qaad qofka. dhiigga markaad qaadaysid waa inaad tartiib u jiidaa waxa loo yaqaano aagada. maxaa yeelay dhiigga haddaad xoog u jiidid waxaa kaa dhacaya waxa loo yaqaano hemolysis ayaa dhacaya ama RBC ayaa burburayso. hadhow dhiiggaas waxyaaba aad ka baaraysid waxaa kuu soo baxayo result qaldan ama waxa loo yaqaano tusaale ahaan serumkii oo kaleeto markuu soo baxayo hemolysis markuu dhaco. qaabkaas ayaa ugu wanaagsan. inta waxa loo yaqaano silingo oo dhiig ah oo aad qaadanaysid waa inaad waxa loo yaqaano ama inta cc dhiiga ood qaadanaysid waa inay kuu qiyaasan tahay. cc iyo ml waa isku mid waxa ma isdhaamaan. marka ma 3 ml ayaad qaadanaysaa ma 1 ml ma 2 ml inta dhiig oo kugu filan waa inaad jiidataa. bukaanka inaad ku laalaabatid ma wanaagsana. waa in aad hal mar ka jiidataa dhiig kugu filan. dhiig markii aad yacni qaadaysid waa inaad aad u daahin. waxaa kaa dhacayo waxa loo yaqaano coagulation ayaa kaa dhacayo dhiig uu kaa xinjiroobi karaa. haddii aad dedejidid oo xoog u jiididna hemolysis ayaa kaa dhacayo. marka qaab dhexe waa inaad ku socotaa markaad dhiigga qaadaysid. weli waxaa socoto dhiig qaadistii waxa loo yaqaano. hadda markii aad yacni kuu dhammaato intii ml aad u baahneed ama cc qofka waa inaad ka furtaa turniiga. suufka ayaad soo qaadanaysaa waxaad saaraysaa waxa loo yaqaano xididkii. silingadan afkeeda waa inaad kor u jeedisaa soona dhiigga kaaga daadan. meel siman dhigo waxa loo yaqaano silingada dhiigga ku jiro. then waxaad soo qaadataa sharootadii aad hore u diyaarsatay. waxaad ku dhijinaysaa suufka ayaad kula qabanaysaa waxa loo yaqaano jirka. saas ayuu kugu dhammaaday waxa loo yaqaano dhiig qaadistii.
waa inaad qofka u sheegtaa. Marka aad dhiigga ka shubanaysid siliingada oo aad tiyuubka ku gedisanaysid laba qaab ayaad samayn kartaa. inaad waxa loo yaqaano tiyuubka toos ugu shubtid adoo derbiga raacsiinayo. Tiyuubka markii dhiig lagu shubayo derbiga ayaa la raacsiiyaa, salkiisa toos hadaa ugu shubtid waxaa kaa dhacayo hemolysis ama dhiig ayaa kaa burburayo. waxaa kaloo isticmaali kartaa waxa loo yaqaano vacuum ayaad isticmaali kartaa. isaga ayaad ku rakibaysaa aagadii, dan waxaad soo qaadanaysaa tiyuubkii, qaabkaas ayaad waxa loo yaqaano kaga shubaysaa. wax hemolysis ma kaa dhacayaan. habkan waxaa loo yaqaanaa vacuum ayaa loo yaqaanaa. kaasaa dhiigga uu shumayaa si dhib la-aan ayuu ugu dhacayaa waxaa loo yaqaano tiyuubkii. dan markii aad ka shubatid waxaad samaysaa waxaa loo yaqaano si gently ayaa dhiigga u qasaysaa waxaa loo yaqaano. dan silingidii waxaan ku ridaynaa biohazard ayaan ku ridaynaa dustbin. waa baha loogu talagalay waxyaabaha caaradda leh ama sharp itemska in lagu rido. qaabkaas waa qaabka ugu wanaagsan ee loo sameeyo blood collection. tiyuubkan waxaad ku ridinaysaa